waxaynu kismaayo ku kala tagnay maalintii madaxweyne axmed maxamed islaam la dooranayay maalin kadib miyaa maaqaan baan ka tagnay magaalada kismaayo ayada oo cambodia dayuurada ku socdaan ummadii xamar joogtay oo dhanna ay ku soo duulayso Jubbaland maalintaas meelkii doorashada waa ka hadalay waxaanan sheegnay dagaalku inuu xamar ka furmi doono oo Jubbaland la iskala tagi doono xamar la isla tagi doono anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada federaalka u matala dowladda Jubbaland intooda badan waxaanu isu xilqaanay in aanu idinkala qayb qaadano dagaalkii halka ka socday tii doorashada baarlamaanka madaxweynaha iyo dagaalkii Cambodia ka socday iyo in meesha laga soo duulayo ee saldhigga ay furan noqoto alxamdulillah Jubbaland maanta waa nabad ciidamada Jubbaland qaybahooda kala duwan shacabkooda madaxweynaha wasiirada waa uga mahad celinaynaa xisaabta waa la kala leeyahay inay dagaalkii Cambodia soo xidheen aad baan idinkaga mahad celinaynaa anagu idinkama aanaan maqnayn oo intaa waa idinla soconay dhinacyo kala duwan baa kaga jiray intaa marka laga soo tago xamar baa la isla tegey waad ogtihiin waxa ka socday ilaa haddana ka socda waxaan ku faraxsanahay galabta ilaahay baa ku mahadsan laakiin tiimkii xamar ka soo duulayay inay iyagu gacan ku gabad yihiin maanta oo xildhibaanadii Jubbaland iyo xildhibaano kale oo aan isku aragtinahay ay qaateen doorkaas maantana meel fiican ay marayso wax duulaan oo xamar idinkaga yimaadana aydan ka cabsi qabaynin haddii alla yidhaahdo keliya waxaan idinka baahannahay ay tahay inaad amnigiina xoojisaan ciidamada amniga la shaqaysaan annagoo runtii ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ee Jubbaland aad ugu mahad celinayna oo ay adag tahay meelaha qaarkood Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya intanoo qof inay isu timaado si nabada ku fadhido walwal la'aan ku fadhido danahooda ay ku qabsadaan intaas marka aan ka gudbo Soomaaliya waxay ku jirtaa xilli adag aad u adag ilaa iyo civil warkii 91 marka uu bilowday ilaa hadda xilligan xilli ay ka adag tahay ma soo marin reer Jubbaland ha isdhiganina dhaanta ma jirto waxa weeye shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxa ka socda waad aragtaan haddee waxaa la yidhi waxa khayrkaa ku socdana adiguna filo ama waxa dariskaaga ku socda adiguna filo waxaa la idinka baahan yahay inaad u diyaar garowdaan oo dagaalku inta aanu idinku soo dhowaanin ama aanu idinku bilaabanin aad u diyaar garowdaan baa la idinka rabaa oo dowladda iyo shacabka iyo ciidamada isku duuban waxa weeye cid ka guulaysanaysaa ma jirto ilaahayna tala saarta laakiin intaasoo kala socota khatarteeda ay leedahay waad ogtihiin Jubbaland lacag baa la isku dayay in loo adeegsado xoog baa la isku dayay siyaasad baa la isku dayay qabiil iyo shacab iyo dad la kala qaybiyaa la isku dayay way suurageli wey sharaftaas iyo karaamadaas waxaa iskale shacabka reer Jubbaland oo isku duuban ilaahay baana mahaddaas iskale waafajiyey intaas marka aan kasii gudubno Soomaaliya maanta waxay maraysaa xilli cid walba inaga ay ka dharagsan tahay awal amisom qolo la yidhaahdaa Soomaaliya joogi jirtay oo joogtay ilaa hadda way adag tahay in dhaqaalo loo helo dhaqaalo looma hayo waana lagu daalay maamul xumada xamar ka jirtaana qayb bay ka sii tahay in lagu daalo sababtoo adduunku waxbuu sii ballaangareeyaa waad ogtihiin maamulka xamar ka jira waxa uu qorsheeyey oo uu ku dhawaaqay December 2025 askariga ugu dambeeya amisom inuu dalka Soomaaliya ka baxayo ayay caalamku hordhigeen maantana waxa weeye iyagii baa wax loo raadinaya qaaran loo ururinaya caalamku wuxuu sii qorsheeyayna December baa la xidhay oo loogu talagalay inaan Soomaaliya u baahnayn askar dambe oo joogto caalami ah haddana waynu ognahay meesha ay wax marayaan mar rabo inaan details u galo cadowgaasi waa cadow Soomaali oo dhan cadow ku ah deegaanada haddii uu ku guuleysto adigana waa kugu soo maqan yahay inaanay ku guuleysanin inaan ka shaqeyno wey
inaan garab siino weeye af iyo adinba hadday tahay kuwa puntland ka socda calmiskeed ka socda iyo hadday ka socdo hiiraan shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo meel kasta oo soomaaliya ka mid ah haddii aynaan sidaas samaynin qolaba maalin ayaa meesheeda laysugu imanaya ogaadana cadowgaasi hadda caalamkii dayuuraduu ku garaacaya waxaad garan kartaa miisaanka uu leeyahay cadowgaasi waaga hore aake iyo xoogaa yaroo iscaydhcaydhsanaysaa lahaa hadda dayuuraday maraysaa haddii dayuuradahaasi dhibaatada ay ku samaynayaan sii badataana waan ognahay cadowgaasi meesha kaydka waa uu raba inuu usoo cararo waa jubbaland oo uu isleeyahay biyo iyo baad baad ka helaysaa dhulka kale geed lagu gabado ma leh meel biyo laga cabo ma leh laakiin jubbaland waad iska noolaani haddii aad duurkaa ku jirto muddo badan baad noolaan kartaa haddii ilaahay ku dahay intaas marka laga gudbo reer jubbaland waxaan anaga usoo jeedinaynaa haddaanu nahay xildhibaanadii dowladda federaalka anigoo magacoodii ku hadlaya annagu kaalintayadii aada noo dirteen intii tabartayada ah inkasta oo aada og tihiin haddee dadka layshayo iyo dowlad dhan oo xukuumad iyo qaybo badan leh oo dhaqaale leh ay tahay cidda layshayey haddana ma aysan dhicin inay gacantayada ka soo baxaan oo ay idiin soo gudbaan waagii dhaweydan halka joognay ee doorashada ku mashquulsanayn ayay si doqonnimo a isugu dayeen tiina waa ka shallaayeen oo waynu ogeyn meesha ay ku dambaysay ugu dambayn waxay ku soo urursadeen inay shacabka cunaqabateeyaan dabcan siyaasiyiin ma cunaqabatayn karaan laakiin shacabkii inay cunaqabateeyaan oo aynu ognahay dhibaatada ka jirta deegaanada jubbaland doow 90 cisho waa 3 bilood wasiiradda haweenka oo runtii waa dhaweyd ka timid ay sheegaysa hadda 90kaas maalmood wax dayuuradii ma tegin waxayna ahayd habka isku xidha gobolka Gado oo dhan iyo deegaamo kale oo dawladda aan darisna isku xidho sidoo kale waan ognahay dhibaatada haysata shacabka qofka halkan ka tagaya ee dhoobley u socda oo laga yaabo nusaac inuu socon lahaa $100 wax ka yar ku tagi lahaa inuu xamar tago habeenna joogo haddana xamar ka tago oo dhoobley tago marka uu soo baxayana waa halkaasi soo maro caqabada ay leedahay waanu garanaynaa waxaasoo dhan way iska dhammaan doonaan dowladdan hadda dabcan waa dowlad waddanka Soomaaliya ka jirta inay fiicnaato oo dowlad caadila ahaato ayaan ka rajaynaynay laakiin hadday sidaa u dhaqantay cimrigeedii baaba iska gaaban oo hadda waxa u haray waa bilo dadku sanad bay yidhaahdaan laakiin 6 bilood hadday gaadho waxa weeye waa campaign iyo olole hadday isku dayayaan inay ku darsadaanna kuma darsan doonaan hadday isku dayayaan waxa ay ka hadlayaan ee qof iyo codka ahna qof iyo codka hadee awal waxbayba sheegi jireen hadda haddii waxba ma qarsoonee madaxweynihiina uu difaac kaga jiro meesha la yidhaahdo aadan yabaal ra-iisul wasaarihiina loo diray baalkii afgooye inuu difaac ka galo meesha cod qof iyo cod lagu qaban karaa loo baahanya ma aha waxaan ku faraxsannahay laakiin waa wax dhacay oo hadda jira oo dhaba waay waa ogtiin xukuumaddu maalintii dhaweyd inay go'aamisay inay ka guurto muqdisho oo ay tagto difaac ay ka gasho afgooye taa waad garan kartaa waa ku gacan siinaynaa in difaac la galo oo dalka la difaaco oo xildhibaanadu galaan waa wax lagama maarmaana laakiin waxaad ogaataan oo intaa idiin leeyahay ee jubbalandow runtii aniga markaan hadda imanayay Kismaayo maalintii doorashada maalintii ku xigtay ugu dambeysay laakiin waxaan islaa 2-3 cisho soo joog markaan imid oo masaajidkii cishaha ku tukanay oo maqribka ku tukanay oo taraawiixda ku tukanay oo tahajjudka ku tukanay waxaan isla meel laga tagi kara maana balaaldiis maalmaha ramadaanka intaad qol ku tukan lahayd halkaas kaga tag oo ku cibaadayso wax heli karaa ma jira waa yartaa cid hesha intaana waxaad ku helaysaan ciidanka booliiska iyo nabad sugidda iyo daraawiishta iyo qaybaha kala duwan ee amniga iyo shacabka oo wada shaqaynaya shacabka haddaanu la shaqaynin waxba ma qaban karaan mana heli karaan cadowga waxaa laydinka rabaa ha isdhiganina waa laysku soo maqan yahay
ilaahay khayrkan hayna waafajiyo hana la iswada cafiyo oo dadku ha iswada cafiyaan runtii xilli adag baa la soo maray siyaasad iyo amni iyo waxbaa laga shaqaynayaa intaas waxaan runtii kaloo bogaadinayaa madaxweynaha iyo dowladda Jubbaland guud ahaan sida ay isugu duuban yihiin u wada shaqaynayaan u fakarayaan waxaan rajaynayaa waxaan uu iska dhammaan doonaa waa maalmo taariikho badan oo adag bay Jubbaland soo martay oo dhammaan laga sheekeeyaa tanna waxay ka mid noqon doontaa taariikhda dabcan taariikhdu qofna way reebi doontaa qofna wuu sii socon doonaa ilaahay kuwa ay reebtay si xun u reebtay inaguma daro kuwa guulaysta alla inaga dhigo Jubbalandna waa runtii lagama gorgortamaan waxa kale oo dhan hebelow kaale xil qaado hebelow kaale dhaqaale qaado hebelow kaale waxaan qaado waa badan tahay xamar saaxiibkay Cabbaas anigu waa sognahay waana lagu daalay laakiin haddaanu waxaas fiirino xageen ku soo noqonaynaa meelaan ku soo noqonno bale shacabkanaga nooga muhiimsan idinkuna haddaydan annaga gacanna siinin oo idan ciidanka amniga iyo dowladda gacan siinin waxba ma cid qaban kartaa ma jirto hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa isku duubni iyo alla kacabsi iyo wadajir iyo inaan Soomaaliya dhibaatada sida uga bixi lahayd aynu dhammaanteen u wada istaagno waa ognahay madaxweynaha dowladda federaalka ah dadkii dhisay ee doortay Jubbaland baa ugu badnay oo u kala hadhay oo dabaal degtay oo waxaad ogeyd sameynaysa laakiin nasiib darro waxaan ka xumahay waxa dhacay qabyadii uu sheegay inuu dhamaystirayaba inay ahayd Jubbaland taa waa wada ogtihiin laakiin kuma uu guulaysanaya insha Allah inta yar ee hadhayna aadan yabaal iyo Muqdisho inta u dhaxaysa ayay ku dhamaan doontaa aad baa idin salaamaya oo maasantiin